السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. Subaxnimo wanaagsan waa barnaamijkii ugu horeeyay saako axada aan idin soo gudbinayno. Taariikhdu waa 16 bisha Febraayo sanadka 2025. Haddaba barnaamijkeena saakay waxaynu kaga hadli doonaa maxaa ka soo kordhay xaaladaha guud caalamka gaar ahaan bariga dhexe. Xalay xaalku sidoo ahaa saakay waaga muxuu ku bariyay. haddaba barnaamijka subaxnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaaladdu sida ay tahay iyo halka ay marayso. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xalay gaaray Tel Aviv booqashadiisii ugu horeysay tan iyo markii la magacaabay ee uu ku tago bariga dhexe. sidoo kale diyaarado bambooyin waaweyn sida oo Mareykanka ka yimid ayaa waxay gaareen Tel Aviv. bambooyinkaas oo horay ay u joojisay dowladdii ka horeysay dowladan hadda jirta ee uu hogaaminayay Joe Biden way joojisay, laakiin Trump ayaa u ogolaaday waa bambooyin dhulka hoostiisa godadka ku jira loogu talagalay in lagu garaaco. haddaba Israa'iil way isdiyaarinaysaa, Xamaasna waxay leedahay anagu wax aan heshiis ahayn oo aanu wax ku bixinayno male. Donald Trump oo doonaya in wax laga bedelo heshiiskii hore. haddaba Netanyahu oo diiday si cad saakay in intii ka hartay gawaaridii waaweyneyd cagafyadii iyo guryihii socday iyo wixii oo dhan wax dambe oo la gelin kara Gaza marooyin. wuxuuna shir u ballansaday guddidiisa amniga oo uu kala hadli doono arrinta Gaza. mudaaharaadyo hareeyay Tel Aviv iyo Qudus oo ay sameynayaan dadka Israa'iiliyiinta iyo ehelada dadkooda lagu haysto Gaza iyagoo ku eedeynaya Netanyahu inaanu heshiis doonayn oo uu rabo inuu dagaalkii dib ugu laabto. mudaaharaadyo kale waaweyn oo looga soo horjeedo qorshaha Trump ee ku wajahan Gaza ayaa ka dhacaya meelo kala duwan oo ka tirsan caasimadaha wadamada qaaradda Yurub. haddaba warbixinadaas ayaynu barnaamijkeena saakay ku faahfaahin doonaa. xaalka halkuu maraya, Xamaas maxay kaga jawaabtay qorshaha Netanyahu iyo Trump ay isla wadaan. haddaba qodobadaas ayaynu saakay eegi doonaa. wixii warbaahintu ay ka qortay ayaynu falanqayn doonaa, halkaas ayaynu kasii wadi doonaa. haddaba wixii cusub ee soo kordha inta aan barnaamijka ku jirnana waan idinla socodsiin doonaa. markastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ugu horeeya saakay oo axada aan idiin soo gudbinayno waa barnaamijkii subaxnimo. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka. labadan oday Netanyahu iyo Trump ayaa waxay bilaabeen iska daba wareeg iyo in ay markaa reer Gaza u hanjabaan saacad kasta inay heshiisyadii la gaaray ka baxaan, iska daba wareegaan oo ay markaa dhibaatooyin iyo handadaad iyo hanjabaad ay ku hayaan dadka reer Gaza. reer Gazana waxay leeyihiin waxaas annaga maaha dadka luqadda lagula hadlo. nimankii shalay soo qortay waaye tahjiirid iyo in dadka la qaxiyo iska dhaafe, waxaanu u soconaa Qudus sidaan u xoreyn lahayn ay boorka kusoo dhegsadeen shalay markay maxaabiista sii daynayeen. haddaba marka saakay maxay sameynayaan odayaashan oo ka qaylisiinaya adduunka oo dhan oo leh nimanka kanu maxay yihiin, ma niman fayooba mise waa niman waalan. haddaba telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray wuxuu ciwaan uga dhigay Netanyahu wuxuu diiday inuu fuliyo heshiiskii borotokoolka bini'aadanimada loogu magac daray. Trumpna wuxuu doonayaa in wax laga bedelo heshiiskii hore loo gaaray. fiiri, labadoodu laba qodob ay keeneen. ninka Netanyahu la leeyahay heshiiska borotokool insaani waxaa yiraahdaa waxyaabihii lagu heshiiyey shidaalkii, cagafyadii, guryihii guurayay oo maaragtay gawaarida saarnaa ee loogu talagalay dadka guriga la-aanta ah, teendhooyinkii, waxaasoo dhan borotokool insaani ah, arrimo bani'aadanimo oo maaragtay oo lagu heshiiyey waayo. maalmihii hore qaybaa la geliyey. hadda markii ninkii Trump uu yidhi wax alla waxaa samaysaan maadaama waqtigii loo qabtay nimanku inay wax soo dhiibaan ay diideen, waa idinku taageersanaa uu yidhi. ninkii Netanyahu heshiiskii waaba ka baxay. dhexdhexaadayaashii kale waxay leeyihin
sootaan ku heshiinay heshiisku noo socday inaan hawshaa la geliyo sidaasoo ma ahayn maya saakay wuxuu la yimid aljazeera waxay leedahay wuu diiday fulinta heshiiskii brotocool insaaniga la dhahay brotocool insaaniga waa waxaa idiin soo sheegay wixii in u baahneed gaza in la geliyo wuu diiday waxaa ugu daro ninkaa marka waa la fahmay waxaa kaloo ku xiga Trump ayaa isaguna wuxuu doonayaa heshiisyadii hore loo gaaray in wax laga bedelo wuxuu leeyahay wajiga labaad iyo wada hadal maba la galaaye hor nimankan marka hore ha keenaan wixii maxaabiis ay hayeen dhan ha keenaan isee loo keenaa maxaabiis nimankan maxaabiista miska keenayaan maxaabiista soo nidaam iyo markii hore wax lagu heshiisoo ma jirin oo Mareykanku wax ka saxmay waa heshiiskaas ma jiro sababtoo ah wixii aniga aan amray inay sameeyaan 12 duhurnimo saacada Washington way diideen inay ku keenaan sheekadaas labadoodaas marka labadaas sheekay wadaan markii warkoodu sidaa noqday oo heshiiskiiba uu qatar ku jiro oo nimankanu ay celcelis u yihiin ama maxaabiista gacantaana loogu shubo ama waa weeraraynaa waa warkooda gas haddaba marka Xamaas asaaki war soo saartay Xamaas warkeedu marka war caadi ma aha niman baqaayana ma aha haddaba marka telefishinka Aljazeera dhanka kale wuxuu leeyahay Xamaas waxay sheegtay iyaduna saakay inaysan jirin wax badiil ah ama wax kale oo bedeli kara oo gumaystaha hortaagan in inta hartay maxaabiistiisii uu qaato isaguna uu fuliyo dhammaan heshiisyadii xabad joojinta ee la gaaray iska daba wareegga Netanyahu iyo isku dayigiisa inuu ka cararo heshiisyadan wax ay u keenayso oo uu maxaabiis ku heli kara male xilay hore runta bay idin sheegaa odayaal oo meesha mar walba qarracda wada wax بدل مجران أو أن هين هشيسكي لوهشية إنا فوليسان سيام محابيستين وهشان أما محبوس أذهليسان مجرتين وحاربتان صووضا محبوسا نغا قادي كرتان حول نغا قادي كرتان والله سوق عارت المركز ساكي وربحنتن الجزيرة كقرن ودار واي والله سوق دارانيا والله سو هنجبيا إلا فهمتان واي حماسنا waxay leedahay wax bedel ah ma jiro oo aan ahayn heshiiskii la heshiiyay in la fuliyo annaguna maxaabiista sidii aan u dayn lahayn u dayno ama handadaad haday timaado waxna la ka qaada malili hawshaas marka halkaas iyaduna maraysa adika rabaa bal xaalku meeshu noqon doono fakari aragti dhanka kale saakay ninkii Netanyahu ahaa mar kale wuxuu kulan isugu yeeray saraakiishiisii iyo golihiisii wasiirada leeyahay kabinetka arinta Gaza ka hadlayna kaalin waadiiday shaakay aniga wixii ka bilowda in wax dambe oo Gaza la geliyo oo muhiim ah oo maaratay shidaal iyo cagafyo iyo waxa kan iyo waaweyn in la geliyo waadiid wixii laga yeeli lahaa markii ayaguna saacadaha soo socda ayaa kabinetkan iyo saraakiishan shiraysa oo Netanyahu dhex fadhiyo ayaa ayaguna war laga rabaa haddaba marka aan idin tusoo saakay maxaa leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa la sheegay inuu la kulmi doono kabinetka qorada la yiraahdo golaha wasiirada ah si ay go'aamo uga soo saaraan arinta Gaza marka waxay leeyihiin go'aamadaas la sugayaa inay Gaza ka soo saar go'aanka la sugaa maxay reer Gaza way sheegeen Xamaas waxay tiri ama wadadii lagu socday heshiiska hal la fuliyo heshiis hadii la diido maxbuus damba ma arkaysaan awalba waxa soo riday leh niman marka cabasanaaya ma markay sheekadu marka halka marayso ayaa waxa isqabsaday Israa'iil mudaharaad oo ilaa xalay socda oo si xoogaysanaya marka ka dambaysa mudaharaadku wuxuu ka dhacayaa Tel Aviv iyo Qudus labada meel oo xafiisyada dawladda Netanyahu ay degan ayaa mudaharaadyadu ka socdaan haddaba marka aan idin tuso telefishinka Aljazeera marka wuxuu leeyahay kumanaan Israa'iiliyiin ayaa sameynaya mudaharaadyo si ay iyagoo dalbanaya in la sii dhameystiro heshiiska isdhaafsiga maxaabiista
dadka mudaharaadka sameynayay ayaa bilaabay mudaharaadkooda xalayto oo sabti ahayd talaabiib iyo qudus waxayna taageerayaan in lasii wado heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista waxayna ku eedeynayaan Netanyahu iyo kooxdiisa inay heshiiska hagaldaacinayaan. hawshaasu mudaharaadyadaasuna way socdaan. xafiisyadiisa mikrofoonna loo qaatay warninkan yaa naga qabtaa lagu hayaa. waxaas ma dhageysanaa ma dhageysana waxayba u arkaan Netanyahu iyo kooxdiisa fursad Maraykan ma idin la hadlayo waxaa rabtaan ku sameeya Gaza sooma dhih marka waxaan rabnaa ku sameey karnaa marka maxay ku sameynayaan waa arkaynaa de waxa ku sameeyaan. waxaa noo soo socdaa sheeko kale oo cajiiba bambooyin halis badan oo dowladii Joe Biden ee Maraykanka ay ka horeysay Trump ay diiday in Israa'iil loo raro adduunkii ka qeyliyay darteed ayaa Trump u fasaxay bambooyin waaweyn oo loogu talagalay dhulka hoostiisa godadka ku yaala inay maartay u tagaan kuwii xalay loo geeyay. marka wasiirkii arrimaha dibaddana waa tagay ee Maraykanka Israa'iil u tagay. sheekadaas marka qaybta dambaa kaga hadli doonaa saameynta ay yeelan karaan arrinka iyo falanqeeyaashu waxay ka yiraahdeen. laakiin waxaan markan galaynaa shalay ilaa maanta waxaa socda mudaharaadyo maadaama sabti iyo axad ay tahay shaqooyinka laga nasanayo wadamada Yurub. mudaharaadyo reer Yurub ay ku taageerayaan shacabka Falastiin ayna kaga soo horjeedaan qorshaha Donald Trump ee ku wajahan Gaza. maruu yiraahdo jaxiimaan ka dhigayaa hadday maxaabiista keenin maruu yiraahdo waa qaadanayaa Gaza sideedaba maruu yiraahdo waa gadanayaa warninkan wuxuu rabo iska sheegay ayay waxay leeyihiin ninka anagu haddaan reer Yurub nahay waa ka soo horjeednaa dadka meeshooda ku nool ee degan in xoog looga qaado dhulkooda. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay mudaharaadyo waaweyn ayaa waxay ka socdaan caasimadaha wadamada Yurub iyadoo lagu diidan yahay qorshaha lagu haajirinayo ama lagu safrinayo shacabka Falastiiniyiinta ee qasab looga qaadayo dhulkooda. caasimadaha waaweyn ee Yurub ayay mudaharaadyadanu ka socdaan. caasimada wadanka Britain magaalada London kumanaan dad ayaa waxay ka qayb galeen mudaharaadkan oo markaa looga soo horjeedo qorshaha Donald Trump ee ku wajahan shacabka Falastiiniyiinta. waxaa soo kale caasimadaha ay mudaharaadyada waaweyn ka dhacayaan kamid ah caasimada Ireland ee Dublin, magaalada la yiraahdo Helsingborg ee wadanka Sweden, caasimada Sweden ee Stockholm, caasimada wadanka Norway ee Oslo, magaalada la yiraahdo Bremen ee Jarmalka iyo caasimada wadanka Jarmalka ee la yiraahdo Berlin. intaas marka waxaa ka dhacaya mudaharaadyo socda dadkii reer Yurub waa qeylinayaan laakiin waxaasu labadan nin ma dhageysanayaan maya meeshay baashu uga soo harto halla arkaa la taagiya. qadar xayisiisa kadib waxaynu galaynaa hubkan la leeyahay Israa'iil ayaa xalay loo geeyay iyo xaaladu sida uu u bedeli karo qobaradu waxay ka yiraahdeen beeyay barnaamijkeena subaxnimo ee saakay waa axad. haddaba barnaamijka qaybtan waxaynu ku eegaynaa bambooyin gantaalo oo kala ah oo dhulka loogu talagalay inay galaan hoostiisa qarxiyaan oo tarnalada ama godadka dhulka hoostiisa la rumaysan yahay Xamaas inay saldhigyo u yihiin in loogu geliyo la rabo. marka waa bambooyin culays badan waa bambooyin dhulka dhibaato u keenay. meelaha qaar oo lagu dhuftay adduunka markii lagu dhuftay biyaha soo baxaa lagu leeyahay awooda bamka uu leeyahay dartiis. bambooyinkaas marka hadda ka hor Israa'iil soo dalbatay inay maaragtay ku weerarto Gaza oo tunneliska ama dhulka hoostiisa godadka ah. markaas adduunyada dhan qaylis waxaan bani aadamkan masaakiinta ah oo maaragtay waxba akayaasha iyo qoryaha yaryar wata iyo alyaasiinka see bamka loogu garaaco. markaas dowladii tan ka horeysay oo laftirkeedu taageerada Israa'iil ku waalneed ayaa isku xishootay Biden iyo raggiisa waxay yiraahdeen bamkan yaa la yaalsiin inta kale wixii kale loo rari karaa loo raro.
Trump markuu yimid marka wuxuu yiri wax alla waxa rabtiin waa idin siinaan wixii la idinka mamnuucay hore la idinkaga mamnuucay bambooyinkaas oo ma rabtaan ha qaat bambooyinkii marka waa la soo raray xalay waxay tageen bambooyinkii Tel Aviv Israa'iil ay ka degeen wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rubio Nicola isaguna Tel Aviv uu ka degay safarkiisii ugu horeeyay markii uu xilka qabtay uu ku tago bariga dhexe marka bambooyinkan iyo waxa ay keeni karaan iyo saameynta ay Gaza ku yeelan karaan waxa ay khubarada militarigu ka yiraahdeen waa ka hadlaynaa laakiin marka hore aan idin tuso kanaalka 12 ee Israa'iil ay leedahay oo Israa'iiliintu ay leeyihiin ayaa wuxuu xaqiijiyay inay soo gaareen shixnadihii bambooyinkii cuslaa ee Mareykanka ee Israa'iil uu siiyay oo loogu talagalay haddaba bamkan kanaalka 12 Israa'iil wuxuu leeyahay shixnadahaasi culculus ee bambooyinka ah ayaa waxaa dhawaan u fasaxay Israa'iil madaxweynaha Mareykanka Trump iyadoo madaxweynihii hore Joe Biden uu diiday in shixnadaha la geeyo Israa'iil marka waxa leeyahay xalay ayay Israa'iil gudoontay shixnadaha hubka ah oo bambooyinkaas ay ku jiraan marka bambooyinkan waa sida gantaal oo kale u samaysan yihiin diyaaraddu markay soo rido dhulka galayaan maba qarxayaan ilaa cabaar ay dhulka ku socdaan intaasoo markay socdaan kadib ay qarax bilaabayaan marka waxa lagu leeyahay markii hore waxa loogu talagalay godadka dhulka hoostiisa iyo tunneliska in lagu garaaco laakiin waxa la yaab leh dadka khubarada waxay leeyihiin ma aha markii ugu horeysay oo Israa'iil ay isticmaalayso bambooyinka intuu dagaalka 15 bilood socday dhowr jeer Israa'iil isticmaashay waxna kuma keenin wax ay ka keentay oo ay tunnelis ku baabiisay ma jiraan ilaahay amarkiisa موجودة وحدا عصب ما هنا نقوله واستعماش إسرائيل هذا كهر استعماش مركا وحوين وهذا يسوكر لينا مجرو لكن وأن هو بعلص لبعتدي سوتا لبكي سوتا خسارة بدن جيسن كرا ضد كام مساكين تادي وبربر كاني مالان تدوين كردستي وهو بكال لدعي لبعتدي ذي لذا مركا وحليه مركا الدنيا وأضافتي hubkan waa mamnuuc iyo kan waa saas iyo marka kan waxa leeyahay marka waa haduu wax tari waayo oo markan uu Mareykanka u soo raray haday tunneliskan iyo godadkan Xamaas ku baabi'in waayaan wax kale uma harin ilaa nuclear inay ku dhuftaan u fiirsada sheekadu marka halkaas mare ilaahay uu marka dadka masaakiinta ah reer Gaza badbaadi xaalkooda ka warhay adigan kugu amaanaysanay ilaahay yaa dadka masaakiinta caruurta yaryar iyo haweenkaas iyo ilaahay baa ay ilayhi idikana u duceeyo in ilaahay dadkan loo soo baxbaxsana hubka waaweyn loo soo qaadana ilaahay uun maartay inuu garabkooda galo ilaahay uu markaa ka badbaadiyo dhibaatada iyo shirqoolada lana maagay barnaamijkeygii subaxnimo waa naga inta fadlan qora ducada برنامج كان الله يقرأ هذا نقول عصبتها سبسكرايب كيلو من channel كنا يوتيوب كنا دارة تي في هذا نقول صوته فيسبوك أنا بيج كأنه كلنا هنا دارة شو فضلا فلو قرأ أو لايك قرأ برنامج أو شير قرأ أنت عن مركز كل ما إنه لو تقرأ